Ruushka ama Russia waa waddanka ugu ballaaran dunida waana dal ku kala fidsan labada qaaradood ee Yurub iyo Aasiya. Badkiisu wuxuu gaarayaa ku dhawaad 17.1 milyan oo kiiloomitir laba jibaaran, taasoo ka dhigaysa dalka ugu weyn dunidan aynu ku noolnahay. Tirada dadka ku nool waxay ka badan tahay 143 milyan oo qof, halka caasimadiisuna tahay magaalada Moscow oo ah xarunta siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhaqanka dalka. Marka magaca Ruushka la maqlo, dad badan waxay markiiba maskaxda ku hayaan qabow daran, baraf aan dhammaanayn iyo awood ciidan oo weyn. Laakiin Ruushku intaasoo keliya ma aha. Waa dal leh taariikh kumanaan sano soo taxnayd, dhaqan qani ah, kheyraad dabiici ah oo aan caadi ahayn, iyo door weyn oo uu ku leeyahay siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka. Sababtaas awgeed maanta waxaan idinla wadaagi doonaa xaqiiqooyin iyo macluumaad xiiso leh oo kaa caawinaya inaad si qoto dheer u barato dalka ugu weyn dunidan aynu ku noolnahay. Marka ugu horreysa, waxa ugu yaabka badan ee Ruushka la gaarka yahay waa baaxaddiisa. Dalkan wuxuu ku fidsan yahay in ka badan 17 milyan oo kiiloomitir laba jibaaran, waana ku dhawaad laba jibaar iyo bar beedka dalka Australia. Baaxaddaas awgeed, haddii qof uu safar kaga bilaabo galbeedka Ruushka kuna wajaho bariga ugu fog, wuxuu mari doonaa kumanaan kiiloomitir iyo isbeddello badan oo dhul iyo cimilo leh. Xitaa dadka ku nool hal gobol waxay mararka qaar dareemaan inay ku nool yihiin dal gebi ahaanba ka duwan kan ay ku nool yihiin dadka gobollada kale. Baaxadda weyn ee dalka ayaa sababtay in Ruushku yeesho 11 aag waqti. Tani waxay ka dhigan tahay in marka magaalada Moscow ay subax u tahay, magaalooyinka ugu fog bariga dalka ay maalintoodu gebi ahaanba dhammaad tahay ama ay joogaan xilli habeen ah. Waana arrin muujinaysa sida uu dalkani u ballaaran yahay. Ruushku sidoo kale wuxuu leeyahay xuduudaha ugu badan ee hal dal uu leeyahay. Wuxuu deris leeyahay 14 waddan, waxaana ku hareeraysan badaha Arctic, Pacific iyo Baltic. Xuduudahan badan waxay Ruushka ka dhigeen meel muhiim u ah ganacsiga, gaadiidka iyo siyaasadda caalamka. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu qiimaha badan ee dalka laga helo waa harada Baikal oo ku taalla koonfurta Siberia. Haradan waxaa lagu tilmaamaa harada ugu qotada dheer dunida, iyadoo dhererka gunteedu gaarayo in ka badan 1640 mitir. Waxaase ka siiya badan inay kaydiso ku dhawaad 20% biyaha macaan ee dusha sare ee dunida laga helo. Cilmi baarayaashu waxay rumaysan yihiin in haradani ay ka mid tahay meelaha ugu da'da weyn dunida, da'deeduna ay gaarayso malaayiin sano. Marka laga hadlayo cimilada, Ruushka waxaa lagu yaqaanaa qabow aad u daran. Gobollada Siberia waxaa ka jira magaalooyin ay heerkulkoodu xilliga jiilaalka gaaraan wax ka hooseeya -50 digrii. Tuulada Oymyakon ayaa loo aqoonsan yahay inay tahay mid ka mid ah meelaha ugu qabow ee dadku si joogto ah ugu nool yihiin. Inkastoo qabowgaasi adag yahay, dadka deegaanku waxay la qabsadeen noloshaas iyagoo dhistay guryo iyo hab nololeed ku habboon cimilada daran. Si kastaba ha ahaatee, ma aha in dalka oo dhan uu qabow yahay. Koonfurta Ruushka waxaa ku yaalo deegaano leh cimilo dhexdhexaad ah, halkaas oo lagu beero qamadiga, canabka iyo dalagyo kale. Xeebaha Badda Madow ayaa xitaa noqda goobo dalxiis oo ay booqdaan malaayiin qof xilliyada xagaaga. Arrinta kale ee Ruushka lagu yaqaan waa kheyraadkiisa dabiiciga ah. Dalkan wuxuu ka mid yahay kuwa ugu qanisan dunida marka laga hadlayo saliidda, gaaska dabiiciga ah, dhuxusha, dahabka, dhaymanka iyo macdano kale oo badan. Kheyraadkan ayaana door weyn ka ciyaara dhaqaalaha dalka, sidoo kalena saameyn ku leh suuqyada tamarta caalamka. Waxa kale oo Ruushku caan ku yahay kaymaha waaweyn ee loo yaqaano taiga. Kaymahani waxay daboolaan malaayiin kiiloomitir oo laba jibaaran, waana kaymaha ugu weyn dunida. Waxay hoy u yihiin xayawaano ay ka mid yihiin oorsada bunnida ah, yeyda, dawacooyinka iyo shabeello naadir ah oo loo yaqaano Amur tiger. Kaymahani waxay sidoo kale muhiim u yihiin deegaanka dunida maadaama ay nuugaan kaarboonno badan oo hawada ku jira. Ruushka waxaa ka baxa tareenka Trans-Siberian Railway, kaasoo ah qadka tareen ee ugu dheer dunida. Wuxuu isku xiraa magaalada Moscow iyo magaalada Vladivostok oo ku taalla xeebta badweynta Pacific. Dhererkiisu wuxuu ka badan yahay 9,000 oo kiiloomitir. Safarka oo dhanna wuxuu qaataa ku dhawaad 7 maalmood. Dad badan ayaana safarkan u gala si ay u arkaan quruxda dabiiciga ah ee dalka. Marka laga hadlayo sayniska, Ruushku wuxuu leeyahay taariikh aad u weyn. Sanadkii 1961, Yuri Gagarin wuxuu noqday qofkii ugu horreeyay ee hawada sare u safra, taasoo noqotay dhacdo taariikhi ah oo beddeshay tartankii sahminta hawada sare. Guushaas waxay muujisay horumarka weyn ee dalku ka gaaray sayniska iyo tiknoolajiyadda. Intaas waxaa dheer, Ruushku wuxuu leeyahay dhaqan iyo suugaan qani ah
Qorayaal caan ah, fanaaniin iyo hal-abuurayaal badan ayaa dalkaas ka soo baxay, kuwaas oo sheekooyinkoodu weli laga akhriyo lagana barto jaamacadaha iyo dugsiyada dunida oo dhan. Sidoo kale, dalka waxaa ku yaal madxafyo, kiniisado taariikhi ah iyo dhismayaal qurux badan oo soo jiita dalxiisayaasha. Marka la isku soo duubo, Ruushku waa dal aan lagu soo koobi karin keliya baaxaddiisa ama awooddiisa militari. Waa dal leh taariikh qoto dheer, juqraafi aad u kala duwan, kheyraad dabiici ah oo fara badan, iyo dhaqan si weyn u saameeyay dunida. Fahamka Ruushka wuxuu kaa caawinayaa inaad si wanaagsan u barato sababta uu dalkani weli uga mid yahay quwadaha ugu saameynta badan caalamka. Haddii aad ka heshay macluumaadkan, nagula wadaag qaybta faallooyinka waxa kugu yaabka badnaa ee aad maanta ka baratay dalka Ruushka. Sidoo kale, ha iloobin inaad like saarto muuqaalka, lana wadaagto asxaabtaada, isla markaana aad subscribe garayso kanaalka si aad u hesho muuqaallo kale oo tayo leh oo ku saabsan taariikhda, juqraafiga iyo dalalka dunida.